kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid kusoo dhawo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka inta badan waxaan ku eegnaa macluumaadyada ugu waaweyn ee caalamka siyaasadda bariga dhexe iyo sidoo kale dagaalada ka soconaya gudaha dalka Liibiya qodobada maanta aad wararkeena caalamka ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona diyaarad lagu rasaaseeyay gudaha dalka Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay diyaaradaasi lagu rasaasadeeyay gudaha dalka Soomaaliya baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalka Liibiya oo ka soo horjeesta afgambiga Generaal Khalifa Haftar imaaraadka carabta oo si qarsoodi ah u curyaamiyay qorshihii Sacuudiga ay kala haayeen laba dawladood maxay tahay waxyaabaha dawladda Ruushka iyo calooshood u shaqaystayaasha ajaanibta ku qasbay inay ka baxaan gudaha dalka Liibiya macluumaad arrintaasi ku saabsan ayaa daawan doontaan dagaal nooc cusub oo u dhaxeeya Israa'iil iyo Iiraan oo ka socda dalalka bariga dhexe dawladda Masar oo bilowday inay xulufo ka dhigato dawladda Gariiga oo ay isku dhagan yihiin dawladda Turkiga iyo macluumaad ku saabsan maxay ahaayeen howlgalladii qarsoodiga ahaa ee Turkiga fashiliyay ee ka socday gudaha dalka Liibiya wararkaas oo idil ayaad ku daawan doontaan wararka ugu waaweyn ee caalamka ee xilligan waa 26-ka bisha shanaad sanadka 2020 qodobadaasi midka ku soo jiita ka dhiba aragtidaada la wadaag saaxiibadaada haddii ay tahay markii kugu horeysay ka mid noqo saaxiibada hela macluumaadyada caalamka ee aan halkan ku soo gudbino mahadsanid mar kale waxaan ku hormari doonaa macluumaad kooban oo ku saabsan gudaha iyo diyaaradii la ku rasaasadeeyay gobolka Bay faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya diyaarad lagu rasaasiyay deegaan ka tirsan gobolka Bay waxaana wararku ay sheegayaan in diyaaradaasi oo siday sahay gargaar ah in gelinkii dambe ee shalay lagu rasaasiyay deegaanka Qansax Dheere xilli ay doonaysay in halkaasi ay ku degto sida ay sheegeen ilo wareedyo kala duwan oo ka tirsan dawladda diyaaradaas ayaa la sheegay inay ku dhacday mid ka mid ah rasaasta fudud waxaana shilkaasi u dhacay wax yar ka hor gelinkii dambe ee shalay inta aysan ku degin gudaha deegaanka Qansax Dheere wararku waxay sheegayaan in diyaaradda markii dambe ay ka soo kacday deegaanka Qansax Dheere isla markaana ay ku soo laabatay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya diyaaradda Qansax Dheere geesa gargaarka ayaa waxa lagu waramayaa inuu ahaa mid loogu talagalay dumarka iyo carruurta halkaasi ku dhaqan maadaama ay ahayd gargaar dhanka nafaqada la xiriira ilaa iyo haatan ma cadda sida ay wax u dhaceen mana jirto cid wax ku noqotay diyaaradda inkastoo oogada sare ee diyaaradda rasaas ay ka muuqatay mid ka mid ah saraakiisha maamulka koonfur galbeed ayaa warbaahinta u sheegay in loo malaynayo in rasaastaasi ay rideen al-shabaab xilli ay doonayeen inay diyaaradda ay weeraraan bishan horaanteedii ayaa diyaarad ku dhacday deegaanka Bardaale waxay sababtay inay ku dhintaan ilaa 6 ruux iyadoo mas'uuliyiinta ay sheegeen in ciidan dawladda Itoobiya ka tirsan ay rasaasadeeyeen diyaaraddaasi waxaana wili socda baaritaanka la xiriira diyaaraddaani ku dhacday degmada Bardaale ee gobolka Bay markaana aan eegno wararka ugu waaweyn gudaha dalka Liibiya iyo guud ahaan caalamka waxaan ku hormari doonaa baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalka Liibiya xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee fadhigoodu u yahay bariga dalka Liibiya ayaa maalinimadii shalay gelinkii dambe ku dhawaaqay inay gebi ahaanba ka soo horjeesteen isku daygii afgambiga ahaa ee wada Generaal Khalifa Haftar kaasi oo muuqda in uu ku waayay magaalooyin waaweyn howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalkaasi Liibiya arrintu waxa ay timid kadib markii 11 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka fadhigeedu u yahay magaalada Tobruk ee dalkaasi Liibiya in ay sheegeen in ay aad u taageerayaan hanaanka nabadgelyada la doonayo in lagu soo gudaha dalkaasi isla markaana uu soo jeediyay afhayeenkooda Agoola Saalax baarlamaanka ayaa waxay sheegeen in ay si wada jir ay u taageerayaan hal abuurka oo la yimid afhayeenkooda oo ku aadan in xal dhanka nabadda ah laga gaaro dhibaatooyinka ka soconaya gudaha dalka Liibiya baarlamaanka ayaa waxay ka soo horjeesteen hadalkii dhawaan ka soo yeeray Generaal Khalifa Haftar kaasi oo ku aadan in dadka ay u doorteen inuu yahay hogaamiyaha dalka Liibiya waxaana xubnahan la sheegay inay ka kooban yihiin ilaa ay ku dhawaad 200 oo xubnood in arrintaani ay ku dhawaaqaan waxay ka dambeysay kadib markii guuldarrooyin isdaba joog ay la kulmeen ciidanka Generaal Khalifa Haftar iyaga oo dawladda Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ay guulooyin isdaba joog ah ay gaartay macluumaadyo kale ayaan goodhow eegi doonaa laakiin markaan aan eegno imaaraadka carabta iyo sida uu u curyaamiyay Sacuudiga dadaalada boqortooyada Sacuudiga ay ku doonaysay inay saameyn ugu yeelato dalalka bariga dhexe isla markaana ay ku noqoto hogaamiyaha carabta ee dunida waxa cuuriyaaminaya sida macluumaadka lagu sheegay imaaraadka carabta sida qabiir arrimaha bariga dhexe ka faalooda kuna xeel dheer uu sheegay telefishinka TRT oo laga leeyahay dalka Turkiga tusaale cad waa dagaalka Liibiya halkaas oo Sacuudiga si toos ah u taageeray ololihii dhiiga uu ku daatay ee Generaal Khalifa Haftar uu sanadkii la soo dhaafay ku doonayay inuu ku qabsado magaalada caasimadda ah ee Tripoli
si kastaba ahaatee kasokow dhaqaalaha ee xukuumadda riyaad ee ku taageertay jenaraal khaliifa xaftar imaaraadka carabta ayaa kala wareegay ninka awoodda ku leh gudaha dalka libiya sida khubaradu ay sheegayaan. sacuudiga waxa uu si qarsoon uga caraysan yahay ismuujinta iyo go-aan qaadashada keliga ah ee sii kordhaysa imaaraadka carabta, gaar ahaan arrinta dalka yemen, ayuu yidhi qabiirkan oo la hadlay telefishinka TRT. sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta iyo xulafadooda waxaa dagaal militari ay ku qaadeen dalka yemen sanadkii 2015 iyagoo isku dayay inay dib u soo celiyaan xukuumaddii madaxweyne cabdirabbu mansuur haade islamarkaana ay burburiyaan dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta. si kastaba dowladda masar ayaa sidan oo kaleento waxa ay dowladda imaaraadka carabta ku dhaliishay go-aan qaadasho keli ah, gaar ahaana dagaalada liibiya ka soconaya. 5 sano oo dagaalka yemen uu socday boqortooyada ma aysan gaarin wax hadafkeeda ka mid ah. imaaraadka carabtuna wuxuu si tartiiba uga furanaya xukuumadda riyaad. imaaraadka carabta iyo sacuudiga markii horeba waxay ku loolamayeen gacanta sare ee koonfurta dalka yemen, halkaas oo imaaraadka uu ku taageeraya dhaqdhaqaaqa gooni ugoosadka ee doonaya koonfurta dalkaasi yemen inay kaga madax banaanaadaan yemen inteeda kale. bishii abriil 25-keedii golaha xaalada kala guurka koonfureed ayaa maamul gooni isutaaga uga dhawaaqay koonfurta dalka yemen, waxaana caasimada ay ka dhigteen magaalada cadan. tallaabadaasi waxay kicisay loolan siyaasadeed soo wajahay taageerada sacuudiga, waxaana ay dhalisay caqabad weyn oo dhinaca diblomaasiyadda oo sacuudiga qabsatay. sacuudiga oo la halgamaya awoodda xadidan ee militariga iyo cadaadiska dhaqaale ee ka dhashay dagaalka ayaa wadahadalla qarsoodi ah la faray xuutiyiinta bilihii lasoo dhaafay, taasi oo muujinaysa qirasho ah in dagaalka looga adkaaday. duqeymaha dhanka cirka ee sacuudiga uu ka geystay gudaha dalka yemenna waxay sababeen wax ay qaramada midoobe ku tilmaantay xasarad bini-aadinimo tii ugu xumeed ee adduunka soo martay, waxaana duqeymahaasi ku dhintay 100,000 oo qof. markana waxaan eegaynaa maxaa ku qasbay reer galbeedka iyo calooshood u shaqaystayaasha Ruushka inay ka baxaan gudaha dalka Liibiya. 24-kii saaci lasoo dhaafay waxaa warbaahinta aad u qabsaday in calooshood oo shaqaystayaal u dhashay dalka Ruushka iyo kuwa u dhashay wadamada kale ee caalamka inay ahaayeen kuwa ka baxaya gudaha dalka Liibiya, kuwaas oo markii horeba taageerayay jenaraal khaliifa xaftar oo dagaal ku haya dowladda Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ee caasimada dalkaasi. wakaalada wararka ee Reuters ayaa waxay baahisay in koonfurta magaalada Tripoli ay ahaayeen goob ay isugu imaadeen dhammaan calooshood u shaqaystayaasha Ruushka taageerada siinayay. arrintu waxay ka dambeysay kadib markii guuldarrooyin isdaba joog ah ay la kulmeen ciidamada jenaraal khaliifa xaftar, taasoo ay ka dambeeyeen diyaaradaha droniska ah ee dowladda Turkiga iyo sidoo kale faragelinta dowladda Turkiga ay ku sameysay dagaalada Liibiya ka soconaya, iyada oo dhaqan gelinaysa heshiiska ay kala sixdeen dowladda qaramada midoobay ee aqoonsan tahay iyo sidoo kale dowladda Turkiga. arrinta labaad ee keentay in ciidamada calooshood u shaqaystayaasha laga daabulo gudaha dalkaasi Liibiya waxaa lagu sheegayaa inay tahay guuldarrada soo gaartay dowladda Ruushka ee ku aadanaa inay ku guuldareysteen qorshihii ay ka damacsanaayeen gudaha wadanka Liibiya. waxaana lagu waramayaa in bartilmaameysiga iyo sidoo kale burburintii lala eegtay hubkii Ruushka uu geeyay gudaha dalka Liibiya ay qayb ay ka ahayd in ay fashilmaan calooshood u shaqaystayaasha ajaaniibta ah, gaar ahaan kuwa la sheegay inay u dhasheen dalalka Syria iyo sidoo kale Suudaan. Turkiga ayaa sidaan oo kale burburin xoog leh waxa uu geystay difaacyadii dowladda Ruushka ay ku taageertay dowladda Bashar al-Assad, taasi oo markii dambe keentay inay wada hadlaan Ruushka iyo Turkiga heshiis xabad joojin ay kala saxiixdaan. sidaan oo kale markii Turkiga uu ku guuleystay in uu burburiyo saldhigyo waaweyn oo ciidamada jenaraal khaliifa xaftar ay ku sugnaayeen, dowladda Ruushka ayaa xiriir la sameysay dowladda Turkiga, waxaana wasiirkooda arrimaha dibadda Sergey Lavrov uu la xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga Mevlut Cavusoglu oo arrimo ay ka mid yihiin arrimaha Liibiya ay ka wada hadleen. waxaana iminka lagu waramayaa in isbedel weyn uu ku yimid qorshihii dowladda Ruushka ee dalka Liibiya. markana aan eegna dagaalka nooca cusub ah ee u dhexeeya Iiraan iyo sidoo kale Israa'iil. dowladahan labada dhinac ayaa waxaa lagu waramayaa in muddooyinkii ugu dambeeyay website-yo la kala jabsado, weeraro dhanka internetka ah iyo sidoo kale dagaalka dhanka Twitterka ah uu ahaa mid u dhexeeya, taasi oo si aad ugu sii baahday wadamada bariga dhexe, waxaana dagaalkan uu noqonayaa mid nooc cusub ah. dowladda Iiraan ayaa marar badan waxaa lagu eedeeyay in ay haakaro ama dad burcad ah oo dalkaasi u dhashay ay jabsadeen website-yo tiro badan oo laga leeyahay Israa'iil, iyagoo xitaa qaarkood isku dayay in ay u dhacaan wasaaradaha kala duwan ee Israa'iil. falaarihii ugu dambeeyay ee isweydaarsadeen Israa'iil iyo Iiraan waxay ku soo beegmeen 20 sano guuradii ka soo wareegatay markii ciidanka Israa'iil ay ka baxeen koonfurta dalka Lubnaan, taasi oo ay ku qasbeen maleeshiyaadkii Iiraan taageerada ay siineysay ee Hezbollah, iyadoo Israa'iil ay u dabaaldegaysa markay qabsatay qaybta bari ee magaalada barakaysan ee Qudus sanadkii 1967. Iiraan waa ay xusaysaa maalintaasi, waxaana ay ku xusaysaa Falastiiniyiinta iyo isku xirka muslimiinta iyo sidoo kale yuhuud nacaybka.
hogaamiyaha dowladda Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay qoraal uu ku sheegayo inay taageeri doonaan oo ay caawin doonaan maamul kasta iyo koox kasta oo la dagaalamaysa rajiimka Yahuudda. dhinaca kalena dowladda Masar ayaa lagu waramayaa in iminka ay bilowday inay saaxiib iyo xiriir bay ka dhigato dowladda Greega oo ay xiisad kala dhaxaysa dowladda Turkiga gaar ahaan dhanka biyaha mid ku saleysan. madaxweynaha dowladda Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa la sheegay in qadka telefoonka ay ku wada hadleen ra'iisul wasaaraha dowladda Greega oo ay ka wada hadleen arrimo caadi ah oo ay ka mid yihiin arrimaha dalka Liibiya, dagaalada ka soconaya, isbedelka Liibiya ka dhacay, arrimaha dhanka badda iyo xiisada u dhaxaysa labada dowladood ee Turkiga iyo Greega. Waxa kale oo lagu inay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin cudurka coronavirus, wax ka qabashada dhanka dhaqaalaha, caafimaadka iyo sidoo kale saameynta bulshada oo ku yeeshay cudurka coronavirus. intii wada hadalkaasi uu socday, madaxweynaha dowladda Masar Abdel Fattah al-Sisi iyo ra'iisul wasaaraha Greega waxaa la sheegay inay isku soo hadal qaadeen xiisada bariga dhexe ka jirta iyo sidoo kale dadaaladii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha gaaska Mediterranean-ka la doonayo in la marsiiyo. macluumaadka soo baxaya waxay sheegayaan in Abdel Fattah al-Sisi uu doonayo inuu isbahaysi kale inta uu la samaysto dowladda Greega oo xiisad adag ay kala dhaxaysa dowladda Turkiga. dowladda Masar ayaa marar badan waxay raadisay isbahaysi dhanka sirdoonka ah oo ka dhana dowladda Turkiga, iyada oo dalal badan ay isku dayday inay xiriir la samayso oo ay bilaabaan dagaal dhanka sirdoonka la xiriira. markana maxay tahay ama maxay ahayd howlgalladii qarsoodiga ahaa ee Turkiga fashiliyay ee ka socday gudaha dalka Liibiya? xogo iyo macluumaadyo soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in hay-ado ama shirkado si gaara loo leeyahay oo reer galbeed ah ay howlgallo kala duwan ay ka sameynayeen gudaha dalka Liibiya, kuwaas oo badankood ay doonayeen dhoofinta shidaalka ah. ku dhawaad 20 xubnood oo la sheegay inay ka kala socdeen Australia, Faransiiska, Malta, Koonfur Afrika, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa la sheegay inay ku lug lahaayeen howlgal ka socday gudaha dalkaasi Liibiya, kuwaas oo ay taageerayeen Generaal Khalifa Haftar iyada oo dowlad walba danteeda gaar ahaaneed ay doonaysay. macluumaadka soo baxay ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarad kaargo ay xubnahani ay geysay magaalada Ammaan ee dalka Jordan, iyada oo bishii June dhamaadkeediina la sheegay in sidoo kale ay kaga sii gudbeen Malta iyo dowlado kale, halkaas oo ay ku galeen markii dambe gudaha dalkaasi Liibiya. macluumaadyada soo baxay ayaa waxay sheegayaan in xubnahani sidoo kale ay si gaar ah u lahaayeen shirkado dhanka militariga ah oo howlgallo dhanka sirdoonka iyo macluumaadyo kaleba ka sameynaya gudaha wadanka Liibiya. taasina waxay noqotay mid dowladda Turkiga ay fashilisay. dhammaan xubnahan ayaa waxay ku hoosgambanayeen Generaal Khalifa Haftar iyaga oo taageeraya generaalka. dowlad walbaana danteeda gaar ahaaneed ayay Liibiya ka wadatay. guud ahaan macluumaadyadii ugu dambeeyay ee siyaasadda arrimaha dibadda waana inta wararkan qaybtooda kale intaan ku kulmi doona nabadgelyo.